بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxa aynu dhiganaynaa mathematics xisaabta baynu dhiganaynaa waana casharadii form 4ka marka waa compound angles waa angles isu geysan amba angles markaasi la kala jarayo ayaa loo yaqaanaa compound angles intaas uu koobaya marka koobaad waxaynu eegaynaa sum and difference formulas formulooyinka sumka iyo formulooyinka difference-ka kala jarka okay 1.1 ka waxaan ku eegaynaa formula for qaacidada sin a plus b qaacidada sin a plus b marka la dhigayo waxa aynu sameynaynaa traffic baynu sameynaynaa dhiraandhirin baynu sameynaynaa dhiraandhirinta marka aynu sameynayno waxaan qoraynaa amba aan sawiraynaa right angle triangle baynu sawiraynaa right angle triangle-ka aynu sawirnay xagashiisi qumaneed halka weey angle-ka waxaynu u bixinaynaa angle A baynu u bixinaynaa vertex-ka halka vertex waxa loo yaqaanaa halka laba marka xariiq ay ku kulmaan ay iska jaraan ayaa loo yaqaanaa vertex marka vertex A baynu halka u bixinay halkaana waxaynu u bixinaynaa vertex R baynu u bixinaynaa halkaana waxaynu u bixinaynaa vertex Q baynu u bixinaynaa vertex Q right angle triangle-ka aynu sawirnay waxaan ku dul sawiraynaa right angle triangle kale ayaan ku dul sawiraynaa kaasaynu ku dul sawiraynaa okay line-ka halkaasaynu gaarsiinaynaa xagashi qumaneed halkan weey dhamaadka line-ka iyo dhamaadka halkan vertex-ka baynu isku xidhaynaa imikana waxay noo sawirmay right angle triangle O Q halkaana waxaynu u bixinaynaa R baynu u bixinaynaa waa right angle triangle O Q R inta marka aynu sawirno vertex-ka R waxaynu ka soo daadajinaynaa line baynu ka soo daadajinaynaa waynu wadaynaa waxaynu keenaynaa maxay line O R baynu keenaynaa O R marka aynu ku sameyno xagashaas waxay noqonaysaa 90 markaasi degree halka uu kala kulmay waxaynu u bixinaynaa T baynu u bixinaynaa T vertex-ka hadaba vertex O iyo vertex T iyo vertex-ka marka aynu qaadano waxaynu ku aragnaa right angle triangle baynu ku aragnaa vertex-ka marka aynu qaadano iyo vertex-kana waxa aan ku aragnaa right angle triangle weey oo xagashi qumaneed halkan kan weey kana xagashiisa qumaneed tan weey angle-kan iyo angle-kan way isleeyihiin baynu oranaynaa sababta waxa ay tahay labada angle waxa la oran jiray waa vertically opposite angles oo are equal way labadan haday isleekaadeen labadana ay isleeyihiin angle-ka soo haray laazim way isleekaadayaan angle-kan haduu yahay A kaasina waxa uu noqonayaa A buu noqonayaa okay halka marka aynu marayna hadaba halkan right angle triangle ayaa ku kulmay markii koowaad waxaynu sawirnay right angle triangle O R Q haddana waxaynu sawirnay right angle triangle O Q R baynu sawirnay imika haddii aynu akhrino haddana O T R waa right angle triangle angle-kana waxaynu u bixinaynaa angle B baynu u bixinaynaa angle B baynu u bixinaynaa vertex-ka Q line baynu ka keenaynaa okay waxa uu imanayaa line R T buu imanayaa isagoo ugu dhacaya qaab markaas perpendicular isagoo ugu dhacaya xagal quman isagoo lagu qotominayo okay halka hadaba marka aynu marayno hawsheeni ba bilaamaysa waxaynu oranaynaa sin A plus B waxa uu ku soo baxaa opposite divide by maxay adjacent hypotenuse opposite-kii muxuu yahay eega u fiirsada halkan baa noqotay one angle ka markaynu soo qaadano hadaba right angle triangle-ka aan qaadanayna waxa uu yahay right angle triangle O T R baynu qaadanaynaa halkan waxa weeyaan waa O-di halkan waa maxay waa T-di halkaasina waxa ay tahay maxay R T weey kaasaynu qaadanay okay kana waxa weeyaan waa A kana waxa uu yahay maxay B opposite-kii marka waxa uu yahay T markaasi R weey okay waa T
r divided by hypotenuse-kiina waxa uu yahay maxay OR halkan waxaan ku qoranaynaa maxay OR baynu ku qoranaynaa good halka hadaba marka aynu marayno waxaynu odhanaynaa t markaasi r waa t markaasi r t r okay halka markaynu line-ka aynu sameynay halka uu kula kulmay waxaynu bixinaynaa s baynu bixinaynaa haddaba iyaga u fiirso t markaasi r halka aan ku aragno waxaan ku bedelan karnaa t s lagu daray s r lagu daray baynu ku bedelanaynaa waxaan odhanaynaa waa t s plus baynu odhanaynaa s maxay s markaasi r the whole divided by baynu odhanaynaa o r halkaa marka aynu marayno one single fraction kan baynu kala jibin ku samaynaynaa laba fraction baynu ka dhigaynaayo plus baa u dhaxaysa markaasi t s loo qaybiyey baynu odhanaynaa o r plus baynu odhanaynaa haddana s r loo qaybiyey o r inoola mid ah waa t s loo qaybiyey o r plus baynu odhanaynaa s r divided by maxay o he o r halkaa marka aynu marayno eega haddaba eega u fiirsada waa t s sideka waxaa loo qaybiyey o r o r kaasi waxa uu noqonayaa red angle triangle buu noqonayaa red angle triangle buu side u yahay waxa uu side u yahay o q r side buu yahay laakiin marka aynu eegno t s kaliya waa t s red angle triangle side ma aha marka ka markaasi waynu bedelid baynu ku sameynaynaa waxaan odhanaynaa t s hadduuna side ba u ahayn red angle triangle-iska halkan ku sawiran waynu ka guuraynaa waxaynu u guuraynaa markaa t r q baynu u guuraynaa haddaba t s sidekaasi waxa uu leegyahay r q buu inoo leegyahay oo marka aynu akhrino vertigiskan okay t r q s waa rectangle-kana opposite sideska waa maxay opposite sideska waa maxay r equal way isleegyihiin hadday isleegyihiin markaa halkaan ku aragno t s waxaan ku bedelanaynaa r q baan ku bedelanaynaa inoola mida baynu odhanaynaa r q divided by baynu odhanaynaa o r plus s r divided by o r halkaa marka aynu marayna haddaba akhriskii baynu ku noqonaynaa r q may waa r q waa red angle triangle-ka o r q ayay side u tahay divided by baynu odhanaynaa maxay o r marka angaliska aynu istaagaynaa waa angle e angle e haddaynu kan istaagno kaasina markaasi waynu istaagi karnaa oo k iyo angle b saddexda angle baa la istaagayaa haddaba angalkaa marka aynu istaagno r q da halkaa inoogu qoran waxa u qaybsan maxay o r hypotenuse-ka marka loo eego o q r markaasi hypotenuse-ka lagu qaybiyo maxaynu samaynaynaa waxaan odhanaynaa dhinaca waxaan ku dhufanaynaa o q haddaynu sareeyaha o q ku dhufanay hooseeyana waxaan ku dhufanaynaa o q baan ku dhufanaynaa inoola mid ah r q divided by o r times baynu odhanaynaa o q divided by o q sareeyihii iyo hooseeyi waxaynu isku dhufanay wax isku mid ah oo qiimaha fractionku isma bedelo baa la odhan jiray haddii wax isku mid ah lagu dhufto sareeyaha iyo hooseeyaha plus baynu odhanaynaa halkan eeg waxaan haysanaa s r loo qaybiyey o r akhriska halkan kusoo noqo s r waa halkee s r waa s r s r right angle triangle-ka s r q s r angalka marka aynu taagannahay waxa uu yahay maxay adjacent buu yahay marka waxaynu odhanaynaa adjacent divided by maxaa u qaybsan o r markaasi kaa lagu kaaftoomo waxay ahayd hypotenuse-kaasi inuu qaybsamo marka hypotenuse-kan uma qaybsan sidee baynu usoo gelinaynaa sareeyaha iyo hooseeyaha waxaan ku dhufanaynaa r q baan ku dhufanaynaa times baynu odhanaynaa
RQ divided by RQ. halkaa marka aynu marayno RQ akhriskan soo qaado RQ waa RQ maxaa u qaybsan OR baa u qaybsan isku dhufashada way hoggaansataa kala hormarinta si haddaba kan ugu qaybsamo OQ labadan baynu isweydaarinaynaa waxaan odhanaynaa RQ divided by OQ times baynu odhanaynaa OQ divided by OR plus baynu odhanaynaa labadana waynu isweydaarinaynaa waa SR divided by RQ times baynu odhanaynaa RQ divided by maxay OR. good iminka haddaba akhriska aada ugu fiirsada waxaan odhanaynaa waxaan haysanaa RQ maxaa u qaybsan OQ baa u qaybsan angalka inagoo taagan opposite divided by hypotenuse maxaa kusoo bixi jiray sin A baan halkan ku qoranaynaa markaa waa sin A times baynu odhanaynaa haddana akhriskan u fiirso OQ maxaa u qaybsan OR angle B markaa eeg vertigiskan iyo vertigiskan waa right angle triangle-ka marka waxaa u qaybsan maxay OR waa adjacent OQ divided by OR oo ah hypotenuse-kii adjacent divided by hypotenuse maxaa kusoo bixi jiray cos markaasi waa cos B halkan waxaan odhanaynaa waa cos B plus baynu odhanaynaa RS angalkan baynu taagannahay RS divided by maxaa u qaybsan RQ adjacent divided by hypotenuse maxaa kusoo baxaya cos A marka halkan waxaan odhanaynaa waa cos A times baynu odhanaynaa RQ maxaa u qaybsan OR baa u qaybsan RQ maxaa u qaybsan RQ OR ayaa u qaybsan OR sin opposite adjacent divided by maxay hypotenuse adjacent divided by hypotenuse cos B marka halkaa maxay noogu qoran OR waa OQ RQ kaa weeye RQ waa kaa weeye RQ maxaa u qaybsan OR marka opposite divided by hypotenuse waxaa ku soo baxaya maxay sin B waa opposite divided by hypotenuse waxaa ku soo baxaya sin B halkana waxaan ku qoranaynaa waa sin B therefore timeskanu baynu qarinaynaa inoola mid ah sin A times cos maxay cos B plus cos A sin B therefore baynu odhanaynaa haddaba finally waa sin A plus B waxa uu noola mid yahay sin A cos maxay cos B plus baan odhanaynaa cos A sin B therefore formuladii taa weeye thank you